kadib markii 29 Agoosto idaacadda kulmiye warbixin ka diyaarisay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo ay ka howlgelin ciidamada taraafikada kuwa minishiibiyada ayaa wixii ka dambeeyay warbixintaasi wadada warshadaha iyo wadada Sodonka la geeyay ciidamada taraafikada kuwa minishiibiyada isla markaana waxa lagu arkayaa isgoosiyada wadooyinkaasi ciidamada oo kontroolaya gaadiidka isticmaala wadooyinkaasi maanta ayaan booqasho ku tagnay wadada warshadaha isla markaana u kuurgalnay sida ay u shaqeyso wadadaasi tan iyo markii aan baahinay warbixin ku saabsan wadada warshadaha iyo wadooyin kale gaadiidleyda qaar isticmaasha wadada warshadaha gaar ahaan bajaajleyda ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in wadada warshadaha la geeyay ciidamada canshuurta qaada iyo kuwa taraafikada kuwaasi oo markii hore aan lagu arki jirin sida ay noo sheegeen isla markaana markii hore wadadaasi ay isticmaali jireen iyagoo aan haysan wax sharci ah waa Qadar Cali Xuseen kala tirsan bajaajleyda magaalada Muqdisho والله ودادان ودادي ورشدها لغوما أركي جيرين نمك اللي راه ترافيكو وياهن وحاواي وزائد ميل لاغا استاغو ملهان سوا جرا صح وايه ودادا ورشدها لودا اسبوع بنيه وترافيكدي منشيبيدا uqsoobateen sida hormaan wal magaalada wasaa laga baqi jiray hadda maalmaha warshadii ay lagu aqoon waana waan jirtaa in taraafikada ay soo badatay ay luuq istaagiin meelaha qaarna alla kala wareey karinba oo ina isku dhiibtid danta ugu qasbay minishibi ayaa sidoo kale waa markaan soo jirtay markii horena caadi amal jirnaba wax taraafika iyo minishibi kama xasi jirin toos meeshaan ma aadi jirin hadda laakiin labada asbuuc ay ku soo bateen magaalada wasaa looga cabsi jiray hadda maalmahan meeshaan taagayeenba wadada warshadaha iska taagayeen horta waa magacaygu Cabdiraxmaan Cali Maxamed waxaan kamid ahay dad ku shaqeysta xafladda bajaajta taraafikada dhihin ilaa minishibida marka wadadan ugu weyn hadda wadada warshadaha saaidi u buux dhaafiyeen wadooyinka qaarna waa naga xireen canshuurtoodana waa li waay ma ka keenno bajaaj xamar ku badan sama marka hore wadada warshadaha isticmaalista wadadaas nadiif ah markii hore canshuurtooda saaid maahan haddana luuq walba noo taagan yihiin marka canshuurtooda saaid taliyaha ciidamada ilaalada deegaanka Xamar Cabdinaasir Maxamuud in qarshe ayaa idaacadda kulmiye hore ugu sheegay in shaqadii ciidamada ilaalada deegaanka Xamar ay lahaayeen ay qabtaan ciidamada booliiska iyo militariga horta ciidanku waa ciidan xamar ku kooban kama baxsan xamar sharciyan marka la fiiriyo shaqooyinka xamar laga qabto oo ama bulshada loo qabto ama ka qayb qaadashada amniga wuxuu ku leeyahay qayb weyn laakiin hadda ma ay qabtaan inta badan hadda wadanka burburay shaqooyinka isku dhaxyaaceen qof waliba meesha uu gaar ka shaqeynayo qof aanay ku ekayn dadku shaqooyinka ay sharcigooda tilmaamayay shaqooyinka ciidanka la inta badan dad kale ayaa faraha kula jira asaguna waa shaqeeyaa marka shaqooyinkaas oo ciidamadu lahaayeen kale hayaan waxa kamid ah sida dhismaha kale ayaga control jiray sharciga marka dib u raac hatta hawada yani mashanqaraha warshadaha iyo controlaan sharcigooda qoraya shatuuda nadaafada dhismooyinka sharci darrada ah konsulkaas degmadiiba kamid noqday taliyo konsulka degmada kamid yahay marka waxaas ay shaqadaas gooni leeyihiin shaqadaas waxa aragnay ciidan booliis oo qabanay booliiska shaqada militariga ba qabta gudoomiye waaxda qabta gudoomiye degma qabta gudoomiye ku-xigeenka qabta booliiska qabta militariga qabta marka shaqada ciidanka deegaanka waa la isku yimiday ugu dambeyntii xiriir aan la sameynay taliska ilaalada wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa inoo suurtagali weyday inaan wax ka weydiino arrintan